عبد الرزاق محمد حانشي سودو مدن ودوا هذا ما عبد القادر كسودو بيج كذا فأنا كأجمع هذا علينا يا إن فرصة تسكوه لنا أو أنكشف كيسون بالآية هدلك يسيد وحوس عدين أدام نن أدو فرعون تهاي سأده هنا اللجوء يقانو حواي إن مدهنا هدلك نجوكتي بالمركور وحربا عبد الرزاق محمد حانشي إن إيسو قبط قفك وياه. أنا وحلي هذا عبد الرزاق محمد حانشي وحلي بحش مشرب بركة مدام هاد هالهايسكية أنت ذي باره كسوق إيس أم والشذا كينا يبرو بدله أي اللي يقول بحش مشرح بركة. وقت محاكو خلفرت إن مشرح بركة إرجع سوق كوبح. وحاول هالهايسكية وها سلوغن وها إيري ماجي أن إيربوت كسوق تجاي أو حاير cuntadii beeraha ka soo go'aysay ayaa warshadan keenaya bur u bedelo marka musharaxa burka ayaa waxa la baxshay waxa ii sheegay goobjoog TV ayaa week gudahoodba ii sheegay ka bacdi meel ka soo tago waxa la leeyahay musharaxa burka waa slogan ay ahayd halhays ay ahayd waa la baxshay waata iyadoo dalka wax kasta ay ka sameyn kartay maadaama dalagii iyo wixii la yaqaan halka ay ku baxeen ma isla had fikirkaaga hadii madaxweyne aan noqoto wuxuu noqonayaa mid ku gadma waxaan ku hanweynaa in baahida aan ka saaro Soomaaliya waqtigii siyaad bar waxa la beeri jiray 1 milyan oo hektar hadii la beero 3 milyan oo hektar ilaa 4 milyan oo hektar wadanka dhan uu ku filan yahay baahidan way ka saareen waxaana laga sameyn karaa baastada noocyadiisa kala duwan rootiga noocyadiisa kala duwan macmacaanka noocyadiisa kala duwan anigu waxaan ku xishay kun nooc cunto laga sameyn karaa laakiin Soomaalida haday 100 nooc ay ka sameystaan uu ku filan yahay isku filaansho xagga cuntada ay gaari karaan hadii aan burka keeno burka ugu badan cuntada wax laga sameeyo watahay dalka hadda uu isbedelay oo doorasho la galay waa laga soo laabtay hogaan cusub oo yeeshay laakiin ka hor intii ololihii ay socdeen qofka ugu cad ee aad ka loo rajeynayay kamid ah runaantii wax bedelana ka bedel saameynteedna la yimaada ahayd bal maxay ahayd sababta keentay in aad ka harto ololihii aad ku jirtay wala aniga runada ku sheegay waxaan lahaa shacbiyad shacabka ay taageersanaa waxa maadaama shaqo abuur aan sameynayo aan kheyraadka wadanka soo saarayo shaqo abuurkii iyo dhalinyarada aan shaqo abuur u sameynayo 40 hektar iyo hal cagaf aan siinayo dumarkana qoondada 30 aan siinayo odayaashana ay taageersan yihiin shacbiyada haysta laakiin ma haysan lacag aan kula soo baxay xildhibaanadina waxay lacag bay noqotay marka sidaas daraadeed aan iskaga dhaafay maadaama lacag noqotay in xildhibaanada lagu soo dhaafo aniga waxa shacbiyada aan lahaa ee xildhibaano ma haysan sidaas daraadeed ayaan iskaga dhaafay adoo og in doorashadaysan qof ay cod ahayn doorasho dadban ee tahay oo adiguna aad rabtay inaad kursiga madaxtinimo hesho sidee marka hore Soomaaliya inaad kugu suurto gashay hadii xildhibaanadii waxa loo qoonday lahaa aadan wadin beelan doorashada inta badan lacag waxba la kala qaataa aniga ma ogeyn ceebta watargeeda ka ahayd America madaxweyne Nixon ayaa sameeyay wuxuu dawladdu lacag ku farqay markaas uu madaxweyne ku noqday FBI oo securitykiisa ahaa ayaa qaanadiisa kala soo baxay lacagtiisu u kala bixiyay waraaqa ay ku yaalaan sidii baa looga xayuubay anigu waxaan u haystaa ceebta watargeed waagi aan ka soo tagay America mislahan xildhibaan intuu lacag qaato oo madaxweyne soo saaranaya ama madaxweyne lacag bixinayo xildhibaan uu soo saaranaya ani mislahan markaan ka soo dagaalay dhihi jiray hadaadan lacag haysan at least 2 milyan 3 milyan aad haysan sidee ku helaysaa madaxweynenimo anigu waa la yaabanaa laakiin waa igu dhawowday wixii ay dadka sheegayaan run noqday ani ma aaminsaneyn in lacag la baxsho oo madaxweyne lagu noqdo waxa aaminsanaa ninka danta dadweynaha iyo danta dalka iyo diinta wada ayaa ku guuleysanayo waxa isdhahay qof ugu daacsan oo ugu karti badan oo ugu hufnaan badan oo ugu aqoon badan ay dooranayaan laakiin ma noqon nasiib darro hadda maxaa ku soo baxo aragta marka hadda waxaan ogaaday xildhibaanada la soo bixi waayay sidaas daraadeed aan u tanaasulay laakiin shacbiyada aan leeyahay marka maadaama aan shacbiyada aan leeyahay oo shacabka taageersan yihiin waxaan dhihi lahaa Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha iga dhigo